أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أولنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Welcome back again to Ashraf Academic Online. kusoo dhawaada Ashraf Academic Online. waxa inoo socda cashiradeenii taxanahay maanta waxaan qaadan doonaa cashir kale aad u xiiso badan. haddii ay maalintii kuugu horeysay oo aadna soo booqatid waxayna ka codsanaynaa inaad like nagu dhiirigeliso insha Allah. Okay, maanta waxaan qaadan doonaa The Lion, libaaxa and the cows iyo lo'da. The lion, libaaxa and the cows iyo lo'da. Okay, haddii aan u galno cashirkeena gudihiisa galno. One is open time. waqtiyada ka mid ah there lived waxaa noolaay 4 cows 4 saac in the forest waxay ku noolaayeen keenta. One is open time. waqtiyada ka mid ah there lived waxaa noolaay 4 cows 4 saac in the forest waxay ku noolaayeen keenta. Okay, one is open time. waqtiyada ka mid ah there lived waxaa noolaa 4 cows 4 saac in the forest waxay ku noolaayeen keenta. Okay, every day maalin walba they used to graze together. maalin walba waa isla daaqi jireen. Every day maalin walba they used to graze together. si wadajir ay u daaqi jireen oo waa isla daaqi jireen. Okay, every day maalin walba they used to graze together. maalin walba waa isla daaqi jireen. And the particular spot hal goob ay isla daaqi jireen maalin walba. Okay, in the particular spot waxaynu ku daaqi jireen goob gooni ah ayay isla daaqi jireen. Okay, they were all friends. dhammaantooda asxaab ayay ahaayeen. They were maxay ahaayeen? All friends asxaab ayay ahaayeen. They were waxay ahaayeen all friends dhammaantood saaxiibo ayay ahaayeen. One day maalin a lion, libaaxa soo ayaa arkay the cows lo'dii grazing together oo isla daaqayo. Okay, one day hal maalin a lion ayaa arkay libaax soo ayaa arkay erga soo adin soo ayaa arkay the cows lo'yadii ama sacyadii ama lo'dii grazing together oo si wadajir ah u daaqayo. Okay, the lion, libaaxii wanted wuxuu rabay to eat them inuu iika cuno. To eat inuu cuno them ayga. So sidaa daraadeed he went wuxuu u baxay to catch them inuu ayka qabsado. To catch maxaa waa inuu qabsado them ayka. Okay, aan ku soo celino. The lion, libaaxii wanted wuxuu rabay libaaxa wanted wuxuu rabay to eat inuu cuno them ayka. So sidaa daraadeed he went wuxuu u baxay to catch them inuu ayka qabto si uu to catch inuu qabto them ayka. Okay, when goortii the cows lo'dii ama 4 saac soo ay arkeen the lion, libaaxii when goortii the cows lo'dii soo ay arkeen the lion, libaaxa all of them dhammaantooda fought with him waa ay la dagaalameen. All of them dhammaantooda fought with him waa ay la dagaalameen. Fought maxaa waaye dagaal. Fight ayuu ku yimaaday waa baastigiisa. Fought with them waa ay la dagaalameen. The lion, libaaxa. Okay, the lion, libaaxa had run away waa u cararay. The lion, libaaxa had run away waa u cararay. The lion, libaaxa had run away waa u cararay. A few days passed dhowr maalmood markay ka soo wareegatay. Okay, a few days passed dhowr maalmood markay ka soo wareegatay. And the cows lo'dii quarreled waa ay murween between themselves. nafsadooda dhexdeeda ayaa iskhilaafeen oo waa ay murmeen. A few days passed dhowr maalmood markay ka soo wareegatay. And the cows lo'dii
quarreled ayaa murmeen between themselves nafsadooda dhexdeeda ayaa murmeen oo iskhilaafeen and started waxay bilaabeen grazing inay u daaqaan separately si gooni ah one by one mid walba gooni u daaq ayay bilaabeen okay and started ay bilaabeen grazing separately one by one inay mid walba gooni u daaq ayay bilaabeen ayuu dhahay okay the lion libaaxi killed waxa uu dilay the lion libaaxi killed waxa uu dilay all of them dhamaantood ayuu dilay the lion libaaxi killed waxa uu dilay all of them dhamaantood ayuu dilay okay sheekadaas gaaban ayaan idin soo talagalay aan idin la jecleystay haddii aad ka hesheen oo soo badinaan commentiga warbixin fariin ah okay bye bye waxaan idin leeyahay caafimaad ayaan idiga tagay intaan ku kulmayno cashir kale oo aad u xiiso badan